maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo maalinkii shalay ay dhaliile u jeediyeen dadka ku dhaqan deegaanka biyashinaha ee ku yaala waqooyiga Hargeysa ayaa ka jaray qaar ka mid ah dadka guryahoodii leyrkii iyo biyihii sida ay noo sheegeen mar aanu gaarnay deegaanka biyashinaha iyo meherada ku yaala gudaha magaalada Hargeysa oo laga jaray leyrkii iyo biyihii dadkaasi ayaa ilaa hadda aan garanaynin sababta loo raad gurayo balse waxa ay carabka ku dhufteen in lagu cagajuglaynayo dhaliilo ay shalay warbaahinta u mariyeen maareeye Maxamed Cali Daarood waxaanay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen inuu ka qabto tacadi ay sheegeen inuu ku hayo maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa aanu dhaliishii markii aanu dhaliilayna staafkii wuxuu noo soo diray maxay toolay staafkii isaga ilaalinayay buu noo soo diray biyahaas oo 24 saacadood aan bixiyo oo waraaqoodii ku waayihiin oo 100 shilin aan laygaga lahayn ayuu xinkii dumarka sidoo loo xintamayay intuu iigu yimid uu jaray biyo iga jaray ma jirtaa wax bilo lagu leeyay macni wakaaladu kugu leedahay maya 100 shilin iguma laha shalay subaxii baan bixiyay 100 ka shilin iguma laha xabis markaa shalay subaxii shalay waxaan bixiyay 700 iyo 5 baan bixiyay oo macni oo aan ka bixiyay meesha kadibna wixii aanu lahayn aanu ku eedeynay aanu lahayn qoysahan iyo wuxuu nooga jaray uu nooga jaray ciidan ayuu noo soo diray staafkiisa isaga ilaalinayay ayuu noo soo diray dabeeto sidii buu biyaha iyagii ku gooyay wax aliyaala waxna lagu leeyay ma jirto de waxaan weydiinayaa ummadda iyo dawladaba biyaha ma isaga leh de biyaha waxa loogu leeyay guriga cashuurtiisa iyo biyaha cashuurtoodaba hadii aad bixin weydo xaq bay dawladdu u leedahay inay ka goyso laakiin xaqna looguma laha waad ila hadasheen weeyaan anigu intii aan jireen jooga 70 jir baan hayo anigu noloshayda ma aan arag nin dumarka la xafiiltama oo dumarka la xafiiltama kadib markii shalay aanu dhaliilay halkii buu tagay aad ogeyd jiingadii iyo aqalkii iyo dadkii iyo wixii uu ka dumiyay ayuu qaaday uu raray Daar Salaam buu geeyay nin waliba haduu yiraahdo halkii anigu aan madax aan ka ahay aan anigu haysto ayaan madaxweyne ka haydo wax soconay maaha waan la isku dilaya marka waxaanu ka cabanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan buu soo ka hayst iminka inaan yaro halka jooga uu dilay ciidankii baa dilay oo dhulka la dhacay leerkii baa laga jaray biyihii baa laga jaray hablihii macal way caayeen way qoriyay ula soo baxeen dacaru gurigooda joogto iska warloo jingadooda la qaadanayo de qof wali uu fahmaya anagu intaan xagaa ku soo maqnay gurigii noo soo daba ka weydaartay dhibaatooyin badan ayuu hooyo noo geystay anagu runta qarin mayno isagu wuxuu leeyahay maxaad u hadasheen hooyo anagu ma aamusi karayno cabashadeedana madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi doonayna inuu ogaado ciyaal meesha ii joogaan u maamuli dugsigaan ah waxaan ciyaalkaygii baa inta loo tagay beebkii la isku garaacay oo biyihii la cabayay qofka muwaadinkan wuxuu xaq u leeyahay inuu biyo helo noloshu waa biyaha waxa kaloon ka warbixinayaa meeshan maamul cusub baa qabsaday saldhiga biyashino waa kaydkii nin cusub ayaa loo dhiibay meesha ninka cusub intuu soo galay shimbir haday duusho way duushayun buu leeyahay caruurtiisana wuxuu dhignaa waxa weeyaan ninkaasi problemka isaga maareeyaha u dirayo deegaankii isla dhacaya maareeyaha mar walbana wuxuu ilaahay islaam baa halka martay shimbir baa duushay de macna guuloodeen buu ku shaqeynayaa waanu ka soo horjeednaa waxaan cambaareynta u diraya wax weyn hay'adda xuquuqul insaanka hay'adda shaqaalaha madaxweynaha dhammaan waxaan leeyahay maamulka meesha wax kale ka wadanaahna laga soo gaaro Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa